أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي الذي قال في كتابه الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين والصلاة والسلام على أفضل الخاشعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الإيمان وعشر كينيكوبنا يعني أبعدرني كيف نخشع في الصلاة انتينو إلهي هرتاقنا هاي sidee baynu qalbigeena ilaahay ugu soo jeedinaa tabaaraka wa tacaala ugana soo jeedinaa mashquulka adduunyo iyo hawlaha inta badan inagu tacalluqa waxaynu ugu dambeeyay shalayto waxyaabaha asbaabta keeni karta qofku inuu khushuuco inay ka mid ahayd yani tahsiin qiraa'ati alqur'aan alkariim qofku inuu quraanka si wanaagsan u akhriyo waxaynu ugu dambeeyay نبي محمد عليه الصلاة والسلام وإن يزينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد للقرآن حسنا قرآن كمركز آخرية إنسان قرآن كالصوت كينا كونا جي عد كينا وإنه كوضا هذا اللي شاليته سيد الله قاجنا يا وحايتهي وحانا وعجبتنا رسولك عليه الصلاة والسلام inuu si gaar u amaanay dadka imaamiyada ah ee markay quraanka akhriyaan dadka ku daba tukanaya ay dareemaan in Ilaahay ka cabsanayaan tabaaraka wa tacaala taasna waa hibo gaar ah oo uu Ilaahay u siiyo tabaaraka wa tacaala qofku doono waa nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam inna min ahsani an-naasi sawtan dadka waxa ugu cod macaan oo ugu cod fiican بالقرآن حق قرآنك الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله قفك مركا آد مقشان إساقو قرآنك أخريا آد أقادتان قلبك يسنو عبسك جرت فهنا عجبت وقادا إلهي قدرتي مركا نجيستو أي مدق دوبا رقا قارواد أويسا رقا قار نمكة لجعلي وهبه إلهي أوسي وانا وحقفك قلبك يسكو تعلقا إمام بالغي أبا مركات صلاة آد كدبتكتو إناد خشوع إيو الدرين بدن وكونا شو قفنا وحالغي أبا إناد بحصوصا إنو أخرية قرآنية إنك له حديث كاسا وحديث صحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام سيدا وكوري ابن ماجه وصوصاري سيحو الجامع أنا واكجرا لبقض بينو مركا مانتا خشوع ذا كقبحي ناريتي ذا بمعنى درسينا مانتا لبقض أيوم بينو كورمينا oo khushuucda qalbigeena soo jeedin kara waxa kamida arinta ugu muhiimsan waxay tahay an ya'lama anna allaha yujibuhu fi salati qofku inuu qalbigiisa ku soo xaadiriyo oo uu ogaado in ilaahay u jawaabayo hadalkiisa ilaahay baa ku jawaabaya la hadlaysa cadamada ilaahay ka warama rabbigi khaliqaha ee raasiqaha allihi ku abuuray ku nimceeyay bari kortiisa aad tagaysay janna aad ka doonaysay hadduu ka waran ku jawaabayo adiguna aad wax kale ku fakarayso jawaabtiisaba aadan hadal haynin xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam bal ila dhageysta waxa nabigeenu yiri calayhi salaatu wasalaam qaala Allahu azza wa jal ilaahi baa wuxuu yiri wa hadithul qudsi ama hadithul ilaahi labadaba waa la yiraahdaa al hadithul qudsi aw al hadithul ilaahi إلهي بقى مركا وحو يري قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين صلاة وحانو قيبي أنيقا يا أدون كيقا كالابر نص إيا نص بارقو قيبي
walicabdii maa sa'ala addoonkayguna wuxuu iska leeyahay wuxuu i weydiisto waa ballan ilaahay u qaadayo qofka addoonka ee tukanaya qalbigiisu nool yahay culimadu markay tilmaamayeen qasamtu salaata bayni wa bayna cabdi waxay culimadu ku fasireen aayaddaas xadiidkaasi inuu ka warramayo faatixada waayo qaybta dambe ayaa fasiraysa allah wuxuu yidhi faidaa qaala alcabdu addoonku markuu dhaho alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahad oo dhan ilaahay bay u sugnaatay allaha uunka oo dhan barbaariyey rabbi marka la yidhaahdo saddex qadiyadood buu koobsanayaa isimka ilaahay oo rabbi ah ana allaha khaaliquk ilaahay inuu yahay ku abuuray ilaahay inuu yahay ka ku risaaqa ilaahay inuu yahay ka keliya ku maamula saddexdaa qodobba rabbi macnaha ismiga ilaahay ee rabbi bay ku guda jiraan marka ilaahay uunka oo dhan ayuu tabaaraka wa tacaala barbaarinaya binicmatihi addoonku markuu sidaa yidhaahdo ilaahay baa jawaabo ilaahay wuxuu ku yidhahdaa salaada dhexdeeda bal fiiriya ilaahay baa kuu jawaabay wuxuu odhanayaa xamadanii cabdii addoonkaygu waa i mahadiyey addoonkaygu waa ii mahadnaqay ilaahay baa kuu markhaati furaya tabaaraka wa tacaala qalbigaagii baa soo jeeday waxaad tidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay markiiba wuxuu ku siinayaa jawaab ah addoonkaygii waa i mahadshay faidaa qaala alraxmaani alraxiim labadaa isimaa qiimaha badan ee labaduba naxariista ay ku tusayaan mida ay tahay naxariista caamka gaal iyo muslimba ay wada gaadhaysa oo adduunyada ah midna ay tahay naxariista gaar ahaaneed mu'miniintu iska leeyihiin labadaba ilaahay baa bixiya tabaaraka wa tacaala halkaa markaad marayso maxaad soo xaadirsanaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala naxariisihiisa iyo raxmadda ilaahay iyo waxa ilaahay uu kuu galladay iyo nimcada alle uu ku siiyey tabaaraka wa tacaala addoonku markuu sidaa yidhaahdo ilaahay baa u jawaaba ilaahay wuxuu yidhaahdaa athnaa calaya cabdii addoonkaygii waa i ammaanay ilaahay baa odhanaya tabaaraka addoonkaygii wuu i ammaanay buu odhanaya faidaa qaala maaliki yowmi ddiin marka uu addoonku yidhaahdo ilaahay uu u tilmaamo oo uu qalbigiisa soo xaadiriyo ku dhawaaqo ilaahay inuu yahay boqorka maalinta dambayse ee weyn maalinta la isxisaabinayo maalinta ummadda la kala soocayo maalinta xaalkeedu cajaa'ibka badan leeyahay maalinta ummaddu ay qaybsamayaan maalinta murugada iyo xanuunka badan maalinta mu'miniinta u farxadda badan xaaladda noocaasa qofka qalbigiisii waa tegaya wuxuu tegayaa qalbigiisu wuxuu aadayaa maalinta iyo xaaladdeeda xaaladdaa marka uu addoonku yidhahdo maaliki yowmi ddiin ayaa ilaahay wuxuu odhanayaa majadanii cabdii addoonkaygu waa i sharfay ayuu odhanaya faidaa qaala addoonku markuu yidhaahdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahayow keliga ayaanu ku caabudaynaa cid kale caabudi mayno cibaado keligaa baa iska leh cibaadana waa magac caam ah oo guud magacaasi waxa uu soo kulansanayaa oo soo wadagelayaa wax walbo ilaahay jecel yahay oo uu raalli ka yahay oo hadal ama ficil ama wax qalbi laga rumeeyo ah ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa iska leh mid muuqata iyo mid qarsoonba cibaado intaasay markaa tahay macnahaan soomaaliga waxaad odhanaysaa ilaahu keligaa baan ku caabudi ballan baad ilaahay la gelaysaa inaad keligii caabuddo wa iyaaka nastaciin ilaahu keligaa baan ku kaalmo weydiisanaya wixii dhibaataa wixii culaysyaa wixii rafaada wixii xaalada waxaan u baahanahay taakuladayda meesha aan dalabkeeda dhiganaya ilaahu waa xaggaaga iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka waxaad qaaday laba ballamood inaad ilaahay keligii caabuddo oo aadan cid kale hoos dhigin oo aadan daba wadin ilaahay tabaaraka wa tacaala waa arrin weyn afka marka laga sheegayo way sahlan tahay laakiin waa noloshaada oo dhan in diin iyo islaamnimo laga helo qodobka labaad ilaahay keligii inaad kaalmaysato ida istacanta fastacin billah addoonku markuu ballantaad yidhaahdo ilaahay baa u jawaabaya wuxuu ilaahay odhanayaa haadaa baynii wa bayna cabdii
ولعبدي ما سأل تاني وابلا نور دحيسا أنيقا يا أدونكيغا نغا دحيسا إنو كليغا يعابدو وحو أبا هدانا كليغا يويديستو كليغا إنو يكالميستو وارين وين ياد كالميسانا يسا مركي حالة كنت ماذا الله كليغي إياك نعبد وإياك نستعين إلهي بأورنا يا مركات تاني وابلا نور دحيسا أنيقا يا أدونكيغا كدما إلهي وحورنا يا أدونكي وحو إسكالي وحو يويديستو هل كاسا دعادي فاتحة بلا ميسا مركاسا لدي اهدنا الصراط المستقيم إلهي وحاد نقو هنونيسا وآد نقو توسيسا وآد نقو عرابيسا وآد نقو كحيسا نقو نوليسا نقو دشا نقو سوسارتا جدك توسا الصراط المستقيم وإسلام نمدي أوردن ودينتي أوردن ومنهجك دميسترن وجدك عد oo wadada weyn ee dhinac walba luqluqyadu ay ka maraan laakiin jidka weyn ee toobiyaha ah waa jidka islaamnimada xagga iyo xagga toona aadan uga midqsan sida dawacadana aadan u jeejeesan jidka toosan ee islaamnimada inaad ku carowdo oo aad cagta saarto ilaa aad janno ku gaadho way markaasuu adoonku taa markuu ilaahay weydiisto jidka ilaahay ummadda u nimceeyay baad markaa weydiisanaysaa dad jidka ayaa qaaday jidka waxa hore u falay oo u maray dadka ilaahay tilmaamay inay yihiin siraata alladina an'amta calayhim ilaahu waxaad nagu toosisaa kuwaad u nimcaysay korkooda jidkaad ugu nimcaysay sababtiisay mareen ummad baa loo nimceeyey suuratu annisaa baa ilaahay ku sheegay dadka loo nimceeyey برواقة الدنيا برواقة آخره شرف الدنيا شرف آخره كرامة الدنيا كرامة آخره ددك قاطي وددك إلهيري ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله جدك هاينا مريو جدك إلهي ويدي سريسا وجدك أي مرين كو إلهي ونمعيي وأنبيادي إيا صالحينتي إيا شهدادي إيا الصديقينتي رنتبضنا إلهي وحيد عيد لنا الرفيقو أو الراعو أو وددو دي لمرو أو لقود دايدو أو وحويان للدرسو إياقا أخير بدنا أقوى ناكسان هذه درب كاساد ديبانيسا إله الأنبياء يقول جدكو دي مركات سيدا تراهو أياد واحد كما ينقريسا إلهي جد أي لبا قولن مرين وددكي فلاغوبي إلهي الدريقي سكن لحدي salaad walba ilaahay baad weydiisanaysaa inuu marankooda ka duwo iyo jidkooda iyo dhaqankooda iyo dabeecadooda iyo manhajkooda iyo noloshooda waa kuwe غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي وحن كامل قليا إن قاضوا كوا عروتي جدك أي مرين عرض أكينتي وأن منك يهودا يكوي باديوبي مركان على إلهي كل هذا يغلفت الكود وين لومين كدمنا وحويان طريق إلهي بكفل لاغوبين وأن منك كريستانك وعلمه إليه يهودنا يقول علمي له يا علمي طورين وإلهي تبارك وتعالى وعمل فلواين قال هذا كريستان كنا يقول أقوم بلهين أو جاهلين أي وحي هذا عبادين بانو اسكايماننا وان عبادي سنينا مركاسي وحي لي مادين يعني وحيابه أن إلهي تبارك وتعالى آن جدين وان عبادهين سيدا دراديد بوحى ليرادا أمة محمد dadك علمي قاله oo ku amal fali waaya cilmigooda waxay shabahayaan nimanka yahuuda ah ummatu muhammad dadka aan cilmiga lahayn ee aan waxba doonin inay bartaan ee jahliga ilaahay ku caabudayana waxay waafaqayaan qolada luntay ee kiristaanka ama daaliinta loo yaqaano sida daraade qofka muslimka waa inuu laba arrimood isku daya inuu cilmigii barto kuna amal falo ilaahayna uu ku caabudo وحد iyo xujo iyo daliil iyo wuxuu garanayo waa ilaahay ku caabuda tabaaraka wa taala inta qofku markuu yiraahdo ilaahay waa u jawaaba wuxuu ilaahay yiraahdaa hada li'abdi wa li'abdi ma sa'al tan
ducadan inaan ka ajiibo addoonkayga isagaa iskale jidka wanaagsan inaan mariyo oo kuwii loo nimceeyey ay mareen inaan ka duwo labada qolo ee yuhuud iyo nasaaro oo qolana loo carooday qolana ay baadiyoobeen addoonkayga iskale ilaahay baa u ballan qaadaya tabaaraka wa tacaala waliba ilaahay wuxuu raaciyaa walicabdii maa sa'al addoonkaygu wuxuu iska leeyahay wax allaale iyo wuxuu i weydiisto waa casharkeennii koobnaa ee 5 daqiiqo iyo maalintii sagaalaad ama fadhigeennii sagaalaad ee ku saabsanaa kayfa nakhshacu fi salaa allah inagu anfaco وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم